saxaaba jiray isna raggaan quruxda badnayn ka mid ahaa waxna haysanin marka waa nimaan quruxna badnayn meel adduunyana lahayn markaasuu nabigu weydiiyey Julaybiib baa la yidhaha war Julaybiibow maxaad u guursan weyday oo yaa ii guurinaya buu yidhi aniga ma alla malihi yani baa ka muuqada een qurux laygu raacana igama muuqato gacantaydana wax kuma jiraan yaa markaa gabadhii guurinaya nabigu calayhi salaatu wasalaam uu baxay qola ansaara buu u tegey أنصارتي نمكي أهامركو وتجا وحكولي يا فلان زوجني ابنتك وارهب لو قبض هذا يسجوري صحابته انت بدن ويش على ينحدد نبدا النبي عليه الصلاة والسلام إن النبي محمد حديد لا يشان ولذلك والله إذا أنصاري الدين أنصارتك كم إذا قبضوا قعدوا وحلها ميشري سيدي النبي عليه الصلاة والسلام وقرسان لها ninkana waxaaba u yimi nabigii leh inantaada isiyo ii guuri dabeetana nicma wa nucma caynin buu yidhi yani waa erayo tilmaamaya si uu ugu faraxsan yahay waa dee khayr uu bushaaraysanayo waa wax idinku doogsataa buu leeyahy nebi maxamed oo gabadh naga soo doonay calayhi salaatu wasalaam markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi إني لست لنفسي أريدها أنا قم لفهيك ومدون يبو النبي عليه الصلاة والسلام كبردن كويدي سنة أنا قم ما قفك قور سنة قال فلمن بيري إلهي الرسول كيسيو هدايا دوني سير كيكا كتاي قال لي جليبيب بو النبي بيري جليبيب بان إرقواهي مركانكي وحي ومودي وحانا هين بصابحي markii hore go'aanka kaligii baa iska qaatay markan wuxuu leeyahay ilaahay rasuulkiisa iyo balan salaantii la tashado arinku hadduu Julaybiib yahay aan salaantii ku noqdo xaaskii aan u tago hooyadeedan wax weydiiyo buu yidhi